السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا أصحابي مركلة كسو دوادا channel كي ددوينها أحمد داود channel. هدي أد نقول عصبتها إنه صار subscribe أداد هوري نولسي جوجتينا إنه لايك غير فيديوغن ميل فوقنا قارسي إن شاء الله. ما أنت موضوعنا نوحن كجهد لدونا عرور نمدي. محاد كحسوستها دبا عرور نمدي. محاس لكن كوكو قصل بدن مركات صح حسوستها عرور نمدي. maxaase laakiin inoogu la yaab badan caruurnimadii horaa waxay Soomaalidu tiri caruurnimo waa ciil laga koray laakiin anigu waxaan leeyahay caruurnimadu maaha ciil laga koray waa marxalad wanaagsan oo qurux badan oo aynu soo marnay oo aynu jeclaysan lahayn inaynu iskaga sii jirno hadii aynu sidan nolosha moodayno haddaba caruurnimadu marxalada kala duwan buu soo maraa qofku marxaladaas oo marka ta ugu wanaagsan ee aan oran karno waxay tahay waa marxaladii caruurnimada waayo marxaladda caruurnimadu waa marxalad qofku u dhaxeeyo koriin iyo koboc iyo waliba xilli uu aad u yar yahay oo aan nolosha waxba lagaaga dirsanayn nolosha waxba lagaagama dirsanayo sidaa darteed baa caruurnimada waxaynu u soo qaadanay maxaad ka xasuusataa caruurnimadii markii aad yarayd waxyaabihii aad ku ciyaari jirtay dabcan caruurnimadu laba qaybood ayay u kala baxaysaa qayb halkan iga daawan doonta oo codkayga dhageysan doonta oo iyagu ku dhashay magaalo ku koray ku barbaaray magaalo iyo dadaanu isku lod iyo isku waqti ahayn oo iyaguna ku koray markii dambana magaalo u soo diga rogtay amaba sida uu ku dhamaystay ama iyo magaalo ka dhaxeeya haddaba anigu waxaan kamid ahay dadka u dhaxeeya iyo magaalo soo arkay nolosha jacaylka wanaaga xasuusaha runtii qiirada leh ee aadka u wanaagsan nolosha miyigu ay leedahay yaraanshihi soona arkay isla yaraantii magaalooyin kamida magaalooyinka waliba magaalooyinkaas oo markaan casri oo aadna u weyneyn laakiin iska dhaxdhaxaada isagana iyadan ku soo koray haddaba waxyaabaha ugu culus ee aan xasuusto waxa kamid ah caruurnimadii hore marka laga hadlayo maamooyinka iyo hooyooyinku maadaama ay ku shuqlanaayeen oo ay ku mashquulsanaayeen dabcan dadkii dibadda u baxay ee xoolaha raacay ee lahaa waalidiinta waaweyn dhalinyarada mudakarka ee markaa ku maqnaa soo ilaalinta xoolaha raacista xoolaha iyo waliba aan idhaahdee haddii beera ay jiraan markaa ilaalintii iyo qoditaankii iyo shuqulkii beeraha ku mashquulsanaa ayaa waxay waalidiintu u diyaarin jireen cuntooyinkii iyo waliba caaw wixii ay ku noolaan lahaayeen ay quudan lahaayeen marka maamada miyiga degan maadaama hawlaha ku shuqlan tahay ku mashquulsan tahay adiga waa lagu sii deynaya dhulka lagu dhigaya marka dhulka lagu dhigo waxaad chance iyo fursad u helaysaa inaad ishaleeshaan waxa la yiraahdo ciida ama camuuda waxaan xasuustaa marka inaan ka dhirgi jiray anigu ciida waxyaabaha la yaab kale runtii aan markaa soo xasuustay aan aadka ula yaabo waxa kamid ah xilliga nolosha siday ahayd dabcan dhulka quruxdiisa deegaanka carfoon hawada ku soo gaadhaysa waa hawo udgoon sidoo kale dabcan dareemada ama cawska ayaa ka agbaxaya guryaha hareerahooda ama meesha loo yaqaano dhabarka dambe ee guryaha marka la degan yahay dabcan anu waxaan ku soo koray guryo aan gurguurin oo aan ahayn had iyo jeer dadka xoolo dhaqatada ee gurguura laakiin waxaan ku soo koray anigu deegaan degan oo markaa le barkada ay biyaha ka cabaan baraago ay biyaha ku shubtaan oo ay ka cabaan isla markaana beero qodaal u badan xoolihiina kama marna meesha maadaama haddaba xilligaas anigu aan barbaarayay aan korayay waxaan xasuustaa in marka la sii daayo aanu intan ku ciyaari jiray marka guriga hareerihiisa iyo dhabarkiisa iyo muska waxa loo yaqaan muska waxa weeye haddii aad xasuusataan waa oodan ku dayran guriga oo marka miyi la joogo iyagu ma laha jiingada beriga may lahayn ma laha oo guriga lagu dayra ma lahayn wax la yiraahdo dhoobo ama dhagax oo marka deer looga dhigo guryaha laakiin hadii xoolaha la oodayo oo xoolaha la ilaalinayana waxa lagu ilaalinayay in loo sameeyo ood hadii guriga iyo dadka la ilaalinayo habeenkii dugaaga laga dugsanayna ood unba lagu soo xiri jiray marka ooda waxaan xasuustaa xaafadu marka ilaa 3 qaybood bay ka koobnayd qayb waxay ahayd guriga oo loo dayray ama loo ooday si ood ahaana oo marka gurigii ku dhex yaalo dasada ahaa ama guriga cawska ahaa ee aynu geli jirnay marka reer miyigu ay lahaayeen ay guryahooda ahaa asalka ah
marka laga sameeyay dareemada iyo cawska iyo Allah musta'aan waxyaabaha isku tagtagay laga sameeyay quruxda badnaa iyo looxa laga sameeyay ama dhirta laga sameeyay marka laga yimaado dabcan ood baa ku weegaarsan ooda waxa ku sii dhex yaala ilaa laba xero ayay ahaayeen xerada koobaad waa xerada loo yaqaano xerada lagu oodo ama lagu ilaaliyo habeenkii looda xerada looda waxa ka soo horjeeday marka xeradii ariga oo iyaduna dhinac kaga taala xerada arigana marka ariga ayaa loo oodaa si marka iyagana loogu ilaaliyo halka loogu liso loogu maalo isla markaana ay u ahaato hoygoodii waxa kale oo jirta meel la yiraahdo sagaarada ama sagaro ama dabcan sagaro idinka ay sixi doona sagaraduna waxay ahayd goob marka lagu kaydiyo ama lagu ururiyo dabcan waxa soo go'a xilliga guud soo go'da xilliga jiilaalka sida qamadiga dabcan hadii la beertay garowga hadii la beertay arabixida ama haruurka kolba sidaad u garanayso ama galeyda marka sagaradu waxay ahayd goob lagu kaydsado cuntada dabcan ka hada ama balka ka hada balka lagu kaydiyaa laga jaro heeda iyo haruurka iyo galeyda waxa lagu kaydiyaa sayn wada xaso bohona waa god laga qodo dhulka oo marka aad u dheer oo lagu kaydsado wixii marka cunto iyo calaf reerkaasi ay haystaan baadiyuhu si marka loogaga baxo jiilaalada hadii wax la iibinayo iyo hadii xiraad laga dhiganayo xiraadkuna waa cunto marka dadka reer galbeedku xiraad bay yiraahdaan badanka xiraadkaasina marka waa cuntadii la cuni lahaa marka waxna la feedagayo waxna la soo ridqanayo waxna marka sideedaba loo dubanaya hadii xasiid qoyan tahay ama ay cunto qoyan tahay hadii kalena de lagala soo baxayo marka wixii la iibinayo iyo wixii la cunay ayaa marka bohoshaas lagu shubanaya oo kaydahana waa waxyaabaha aad u xasuusta ay kamid tahay ilaa haddana kulay sii jira walow imikaana waxba inta badan dhigmino reer miyiga reer magaal ba ay iska noqdeen oo reer magaal ay isku bedeleen marka waxyaabaha xasuusta aan ka guureyn aan ka baxayn si walo aan u weynaado si walo aan reer magaal u ahaado waxa kamida qaabkii loo noolaa qaabkii marka carruurta ay u noolayd hooyooyinkuna ay ula dhaqmayeen dabcan maadaama hooyadu maalin oo dhan ama haruur tumayso ama ridqayso ama ay daah soo hayso tolayso ama ay dabcan wixii guriga lagu goglay ayaa ay hooyadu marka carruurteedii ayaa ay dhulka intay dhigto ku ciyaaraan ayay leedahay markaas waxaan sameyn jirnay ciid laaqo ciid qoosho waxa laga yaabaa inaan 3 jir 5 jir 4 jir 2 jir intaba inaanu hayn marka waxyaabaha cajiibka marka caruurnimadii reer miyigu marka ama baadiyuhu ay lahayd kamida maanta oo dhan xayawaan yar aad ku ciyaartaad helaysaa waxaad ku ciyaaraysaa Allah musta'aan daaqaas iyo cawskaas ka dhaxbaxay guriga hareerihiisa waxaad ku ciyaaraysaa Allah musta'aan oo kamida waxyaabaha aan ku ciyaari jirnay caruurnimadii aad kaan u xasuusto in dabcan aanu ciidaas ka sameeyno sida ciidaas ayaan waxaan ka sameyn jirnay neef oo kale sawir baan ka sameyn jirnay sawir gacmeed neef oo kale dheri oo kale Allah musta'aan waxaan ka sameyn jirnay oo kale waxyaabo sidaas oo kale ayaanu ka sameyn jirnay dabcan maadaama marka anagu wax kale aan ku ciyaarno qalab oo buuran aanu naag oolin markii hadaba in yar aanu yar korno caruurnimadii aanu caruurnimada aad ka hooseysa ka soo yar gudubnay waxaan haddana ku tartami jirnay boodada oradka sidoo kale qorituurka ama ultuurista waxaan ku tartami jirnay oo caruurnimadii aan ku ciyaari jirnay dabcan xilli dahabiya ayay ahayd waayo qofka soo maray un baa garanaya baadiye si kastood u weyntahay caqligaagu uma dhamaystirna sidoo kale haddana maaha waxa laga yaabaa xilligan iminka magaalada ilmaha yar 2 jirkii inuu isagu ka fikirayo ama markiiba aad adiga laftaadu ka fikiraysa inaad u iibisa mobile aabiskii buu garanayaa uu gali lahaa applicationadiisa ku haboonaa buu garanayaa isagoo 2 jir aan wali gaadhin hadduu doono sida loo geysta ayuu garanayaa qalab buu kala hadlayaa computer laptop wuxuu kala hadlayaa Allah musta'aan school qalimaan buugaag nolol kale magaaladii waa nolol kale miyigiina waa nolol kale sidaas lamida anagu xilligan miyiga markaa joognay xilligii magaalada aanu soo galay anagoo yar magaalada aanu nimid labadaba waxaan wax ku baranaynay loox khad iyo qalin qori Allah musta'aan oo looxyada miyiga laga jabiyay ama laga sameeyay iyo khadkii iyo waliba looxaas oo markaa isna ahaa looxa lagu qorto quraanka lagu barto
waxyaaba cajiib kale subcis baan samayn jirnay waxa la yiraahdo subcis kaasoo markaa dhici jiray xilliyada hore waa beriga hore sida 5 subaxnimo 4 subaxnimo la kicin jiray 4 subaxnimo markaanu kacno ilaa iyo laga gaarayo 8 barqada waa xilliga inagu aynu naqaano nus saacaha oo kale 10 subaxnimo ilaa 9 subaxnimo oo kale ayaa dib loo soo deyn jiray markaas cuntooyinka soo doonan jirnay haddana dib baan ugu noqon jirnay madrasadii waxyaabaha kale xiisaha leen xasuusto xilligii miyiga iyo xilligii dahabiga aynu soo marnay carruurnimada waxa kamid ah in xilliyada qaar macallinku dabcan uu noo diri jiray inaanu soo sameeyno wax la yiraahdo maadaama waa beriga hore la shidayo malcaamada ama madrasada de waxaan u baahnayn dabkiina wuxuu u baahan yahay xaabo ama dhir buu u baahan yahay marka qalashay in la soo guro dabcan waxaan ku tartami jirnay oo noo ahayd waqti dahabiya inta yar la nafasaxo marka la yiraahdo galakaynta sidaanu isku eriyanayno aanu isku sii eriyanayno midba mid uu reebayo ayaanu kaynta gaari jirnay kadibna nin walba wuxuu soo qaadi kara xaabo soo ururi ood qalashay soo ururi soo go soo jabi haddana waanu soo jiidi jirnay wadada aanu soo marino anagoo aad u yar haddana wadada aanu soo marino oodaas waxaad moodaysaa in gawaari waaweyn ay martay macnaha sida la isku eriyanayo siigada la kicinayo markaan madrasadii ku soo noqono ayaa wixii dhacay macalinka looga sheekeeyaa kadibna qaar la garaacaa qaarna la fadhiisiyaa qaar la xukumaa dabcan marka xilligii caruurnimada reemiyigu de maalin marxalad ilaa markii dambe aanu gaarnay heer inaanu ariyihii raacno mas-uuliyaddii anagu aanu la wareegno xaafadda oo marka hore waxaa lagu diraya waxaraha waxa la yidhahdo waxaraha ama naylaha ama baraarka kolba sidaad u garanayso macnaha waxa weeye ariga waaweyni dhashiisa ayaa waxaa loo yaqaanaa baraar ama naylo ama waxaro kolba saa doonto dheh hadday yihiin waxaraa la odhanaya carruurtooda haddii ay de yihiin dabcan idana naylaa la odhanaya marka la arkay inaad kuwa kasoo yar dhalaashay oo aad kuwa mas-uuliyadoodii qaadatay ba haddana waxaa lagu yar dalacsiinaya ariga in lagu raaciyo oo qof kalena lagugu yar kaabo kadibna arigiina haddaad mas-uuliyaddiisa la wareegto ood sidaa kaga adkaato waxaa laguu diraya haddana lo-da oo kuwii waaweynaayo dee dabcan lo-dii oo kalea laguu dirayaa geeli baa laguu dirayaa ilaa marka dambe lagu arkaa inaad dee ku wada filan tahay mas-uuliyaddii gacmaha lagaaga qaado oo marka dambe beerta iyo hawsheedii iyo ka shaqaynteedii marka xilli dahabiya oo caruurnimadii na soo martay bay ahayd waana marxaladii miyiga waxyaaba badan oo runtii aan ilaaway baa jira oon ka booday waxaanu isticmaali jirnay wax la yidhaahdo ku tartami jirnay foorida oo kale waxaanu ku tartami jirnay ciyaara dhaqameedka habeenkii oo kale wax la yidhahdo jafle iyo weliba hees walwaaleedkii dee xoolaha loo qaadayo oo kale aan ku tartami jirnay sidoo kale dabcan anigoon gaadhin dee xilliyadii la bixi jiray aroosyada la booqan jiray baan ka imid miyigii markaa magaalada aan usoo wareegay laakiin dee fasaxyadaan ku noqon jiray maadaama magaalada aan joogaa markaa markastoo la nafsaxo madrasada aan ku noqon jiray waan xasuustaa kadibna aroosyadaas ka qayb gelaysaa xafladaha aroosyada ee dhacaya miyiga masaafo dheer baad lugeynaysaa habeen dhan si aad markaa aroos nooga qayb gasho marka xilliyada dahabiya oo cajiiba ayaa markaa dhalinyarnimadii caruurnimadii miyiga nagu soo maray bal adigu maxaad ka xasuusataa i dhegeysanaya ama i daawanaya maxaad ka xasuusataa xilligii caruurnimada maxaad ku ciyaari jirtay maxaa kugu la yaab badnaa maxaase laakiin bal qoraal nagula soo wadaaga iyo xagga commentiga aad mahadsantihiin waxaan leeyahay caruurnimo waa xilli lasoo wada maray